بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno dhisidda guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta markay dhageysatay war murtiyeedka ergooyinkii shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug, markay aragtay baahida loo qabo in dadka reer Galmudug wada dhistaan dowlad goboleed ay u dhan yihiin, markay tixgelisay soo jeedinta guddigii qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug, iyadoo baraarugsan in uu si guul ah ku soo dhammaaday shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug lana joogo waqtigii la dhisi lahaa dowlad goboleedka Galmudug oo bedela maamulka hadda waqtigiisu dhammaaday, iyadoo dareensan wasaaradda khatarta amni iyo midda maamul ee shacabka Galmudug soo wajihi karta haddii waqtigan xasaasiga ah aan Galmudug dhisan dowlad goboleed ay wada leeyihiin. wasaaraddu waxay go'aamisay qodobadan soo socda: 1. dhisidda guddi farsamo. in la dhiso guddi farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug oo ay ka qayb galaan dhammaan beelaha wada dega Galmudug. xarunta maamul dhisidda waxay noqonaysaa magaalo madaxda dowlad goboleedka Dhuusamareeb. 2. tirada xubnaha guddiga iyo guddoonka. guddigu wuxuu ka kooban yahay 13 xubnood oo ka kala socda beelaha degan Galmudug. guddigu waxay iska dhex dooranayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen. hawsha guddigu waxay noqonaysaa mas-uuliyad wadareed. qodobka 3. magacyada xubnaha guddiga. 1. maxamed cumar warsame afrax. 2. cabdulqaadir nuur caraale. 3. axmed maxamed caafi. 4. cabdirasaaq kaahiye yuusuf. 5. cumar maxamuud cabdi. 6. xuseen cabdulle xasan. 7. maxamed daahir faarax. 8. cabdinaasir geele cilmi. 9. xaliimo cabdi cali. 10. maxamed maxamuud cali. 11. cabdirasaaq aadan warsame. 12. abshir cabdiraxmaan maxamed. 13. cabdirashiid cali salaad. qodobka 4. guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug waxa uu u xilsaaran yahay fulinta habraacyada iyo shuruudaha lagu saleeyay xulista hogaamiye dhaqameedyada rasmiga ah iyo xildhibaanada golaha wakiilada, ku tababarista hogaamiye dhaqameedyada waajibaadkooda iyo qaab xulidda xildhibaanada, maareynta iyo xalinta khilaafaadka ka dhex dhasha odayaasha dhaqanka, ansixinta liiska xildhibaanada iyo xaqiijinta waafaqsanaantooda habraacyada iyo shuruudaha soo xulitaanka xildhibaanada, iyadoo la xaqiijinayo in lagu wada dhan yahay si cadaalad ahna loo soo xulay. qodobka 5. guddiga waxaa caawinaya xoghayn ka wakiil ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo la shaqayn doonta guddiga farsamada ee dhisidda dowlad goboleedka Galmudug. qodobka 6. waajibaadka shaqo ee guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug waxaa lagu qeexayaa lifaaq gaar ah oo lala wadaagi doono guddiga farsamada. wada shaqayn wacan. isaaq maxamed maxamuud kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha. wabillahi towfiiq.